in dhaweed intii ay socotay dagaalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland ayaa qayb ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee afka Soomaaliya ku hadasha baahinayeen warar xaglina taasoo liddi ku ah jiritaanka qarankani Soomaaliland haddaba kulan daaran arintaasi ayaa xubno ka mid ah howlwadeennada ka shaqeeya TV-ga madaxa bannaan ee SBS gaar ahaan gobolka Togdheer ayay ku cadeeyeen inay gebi ahaanba iska casilaan shaqadii ay u hayeen telefishinkaasi. Bismillahirrahmanirrahiim. maanta waxaan halkan ka shaacinaynaa haddaan nahay howlwadeennada telefishinka SBS ee gobolka Togdheer inaanu maanta sida kaga dhaqaaqnay xilkii aanu haynay telefishinka SBS ee gobolka Togdheer. sababtaan uga tagnay haddii aan raaciyo wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay caadaystay toddobaadkii ugu dambeeyay gaar ahaan inuu ka bilaabo waddanka Soomaaliland propaganda iyo kicin dadweyne taasoo ku dhiirigelinaya dadka dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Tukaraq. telefishinku wuxuu qayb lixaad ka qaadanayaa sida hadda muuqata burburka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. anigoo ah Maxamed Cabdi Cismaan oo ku magac dheer Maxamed Soomaali kana mid ah howlwadeennada telefishinka SBS ee magaalada Burco. guud ahaan iyo gebi ahaanba anagoo isku duuban shaqaalaha gobolka Togdheer maanta waxaan halkan ka cadeynaynaa inaanu joojinay dhammaanba shaqadii aanu haynay telefishinka SBS maadaama uu sameeyay falal buunbuunin kicin iyo caarin ah ugu sameeyay bulshada degan Soomaaliland iyo Puntland. mulkiilaha telefishinka SBS waxaan halkan uga sheegayaa telefishinka wuxuu hawada u soo geliyay kulli markii hore in bulshada Soomaaliyeed uu dhex u ahaado lagu shaqeeyo maadaama uu dagaalka ka faa'iideystay oo qaatay lacag wariyaashii goboladana uu ku yiri guriyihiina wararka ka soo dira oo dhuumasho ku soo dira. waxaanu dhammaanteen anagoo isku wada duuban halkan ka cadanaynaa shaqadii telefishinka aanu haynay aanu ka wada tagnay. sababaha telefishinka shaqadiisa aanu joojinay waxa ka mid ah markuu telefishinka ku kacay dumin qarankan Soomaaliland oo ah qarankayga Soomaaliland dagaal cad iyo fawda cad oo kula kacay telefishinkaas. Bismillahirrahmanirrahiim. waxaan maanta oo bish taariikhdu tahay 26 bishii shanaad 2018 halkan si rasmi ah uga cadeynaynaa inaanu joojinay shaqadii aanu ka haynay TV-ga SBS ee magaalada Burco markuu ku kacay falal ka duwan anshaxa saxaafadda aan la mid ahayn markuu ku kacay waxaanu cadeynaynaa anagoo isku duwan bahda saxaafadda ee Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inaanu joojinay. dhinaca kale barasaabka gobolka Togdheer ayaa bagaadiyay wariyaashani ka hawlgali jiray TV-ga SBS isagoo sidoo kalena hambalay u diray ciidamada qaranka. jaalay maanta halkan inaan ka idhaahdo dhowr kelmadood oo ku saabsan xaaladda dagaalka ka socda jiida Tukaraq. waxaad ogtihiin in maleeshiya beelaadka Puntland oo kaashanaya dawladda taagta daran ee Soomaaliya inay muddo ka wadeen deganaansho la'aan xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland. arrintan nabadgelyadu way u qulqursami weyday Puntland way u qulqursami weyday. waxaad ogtihiin in dagaalka labada jeer ay soo qaadeen in ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhufteen dhirbaaxa kulul maleeshiyaadkii soo weeraray sida maaragtay adigu ogtihiin. waxa jira oo runtii aan jecelahay halkan inaan maanta ka sheego TV ka mid ah TV-yada afka Soomaaliga ku hadla oo ilaa maalintii xaaladaas ay aroosantay warar khaldan oo beena oo propaganda oo waxa weeyaan ay taageero buuxda u muujiyeen maleeshiyaadka Puntland inay jiraan. TV-yada waxaan maanta laga bilaabo sheegayaa inaanay ka hawlgali karin gobolka Togdheer. waa garanaysaan TV-yadaasi kuwa yihiin. waxa ugu horeeya TV-ga la yiraahdo SBS ayaa ugu horeeya oo caadaystay warar propaganda oo been ah oo ku wajahan qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si cad ula soo saftay saxaafaddu dadka waa u dhex saxaafadda waa u dhex dadka waa u dhex si cad wuxuu la soo saftay maleeshiyaadka reer Puntland. tallaabo laga qaadi doonaa waxaan u gudbin doonaa warkooda u gudbinay wasaaradda warfaafinta
jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan u gudbinay waxaan halkan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii SBS u joogay gobolka oo maanta markay u dul qaadan waayeen qaabka uu u shaqeynayay TV-goodu aan isku casilay oo shaqadii kaga tagay oo waxa weeyaan shaqaalaha soo muujiyay muwaadinimo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco